السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واتكم سنتاي داوشد موقالكن كسو دوو شدس بشير جيدي سبسكرايب نصار جنباليل كان فرو كان من نقو صاحي بدا اي نولش السود دوين دونتو قوشنا قاري دونا اين اوهم باليين دونتو نولش. ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम. waxaan joogay magaalada Hyderabad ee gudaha dalka India. waxaan ku noolaa muddo 3 sano ah mana aanan garanayn luqadda dalkaasi oo aan baran waayay weynay u adkaatay. waxaan ahaa wiil bashaash ah, waxaan ahaa wiil mustaqbal ifaaya leh, waxaan ahaa wiil hiigsanaya hammi fogna leh. mana aanan aaminsanayn in hammiga fog aan leeyahay in uu jiro qof bani aadam ah oo hammigaasi leh. ujeedadan India u joogay waxa uu ahaa waxbarasho, magaciiguna waxa uu ahaa Ismaaciil, balse Indida iyo Soomaalida aan la noolaa waxay ugu yeeri jireen Golden Boy. weligayga isma dhihin waxaad jeclaan doontaa inuu jacayl gala iska daayo. mana aanan aaminsanayn in qof ajnabi ah maalin aan dartii aan u ilmeyn doono. farsha waxay ahayd gabar Hindustaan ah, waxaan isla dhiganaynay college ku yaala magaalada Hyderabad ee gudaha dalka India. waxay ahayd gabar qurux alla u dhameeyay. qofkii bani aadam ah mar qurayndiisa saara kama uusan jeesan karin quruxda ay qabtay dartii. waxaan u qaaday jacayl aad u baaxad weyn. daqiiqad walba waxa igu zaa'idayay jacaylkeeda. xubbi xad dhaaf ah ayuu rabbi qalbigayga ugu abuuray. isku kalaas ayaan ahayn. nasiib xumo waxay ku soo kortay koonfurta India ee Teluguga. mana taqaano luqadda Ingiriiska in yar mooye. annama aqaano luqadda Teluguga. hal sano ayaan madaxa oo kaliya iskala hadlaynay oo kor ayaan isaga baaqi jirnay. markii la gaaray xilligii fasaxa ee kuleejka ayaa maamulka kuleejka inoo sheegay in bakhtiyaa nasiib aynu ku helnay in dalxiis hable iyo wiilalba aynu isku raacno, isla mar ahaantaana aynu aadno gobolka quruxda badan ee loo dalxiis tagay Shimla. marwan farxay oo xubbidayda ayaa i raacaysa, marna waan nahay oo xitaa sidee tahay ma dhihi karo luqad ahaanna si fiican iskuma fahansanin. waxaa jiray wiil aan saaxiibanahay oo luqadda Indiga aad u fahansanaa. waxaan ka codsaday in uu iga caawiyo jacaylka xad dhaafkayaan u qabo farsha. waa uu iga aqbalay. muddo 1 sano ayuu i meermeerinayay. ileen ma ogi warna uma hayo wiilka saaxiibkayga ahi. ileen xiriir jacayl ayuu u bandhigtay kalana dhaxeeyo. mar walba waxa uu dhahaa way soo dhowdahay arrintu, anna jacaylka adduunka ayaan u qabaa farsha. muddo kadib waxaan ka wareelay wiilkii saaxiibkayga ahaa inuu guursaday xabiibtayda farsha. 3 sano kadib waxaa dib iigu soo laabatay farsha oo 2 caruur ah wadato, isla mar ahaantaana mataana ahi. hadda waxaan ku suganahay xaafadda Shantiin Nagar ee gudaha dalka India. waxay leedahay muddo kooban kaliya oo aan ku arkay ayaan kugu jeclaaday. waxaan sameeyo ma aqaan, waxbarashadii ayaana ii socota. waxayna leedahay waan isguursanaynaa. anna maanta igama hayso jacayl oo waa uu iga baxay. wax aan sameeyo dunidan waan garan la'ahay. subscribe no sar channelka Gambaleelka.